halkani waa tuulada Timire oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Jawhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana halkani fatahaad ka sameeyay webiga Shabeelle maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo dadka deegaanka ayaa iska kaashaday sidii loo xiri lahaa goobtani oo webiga Shabeelle ka fatahay fatahaad oo halkani ka sameeyay webiga Shabeelle ayaa waxa ay qasaaro u geysatay dhul beereed loo diyaarinayo sanadkani in lagu beero dalagyada noocyadiisa kala duwan sidoo kale biyaha halkani ka baxay ayaa waxa ay jareen wado jay ah oo isku xirta Mahadaay iyo Jawhar iyo waliba tuulooyinka dhaca jiinka webiga Shabeelle qaar ka mid ah wax karadka deegaanadani iyo dadkii xiray ayaa ugu horreyn ka hadlaya goobtani xilliga ay fatahday iyo waliba qasaaraha ka dhashay boqodatan oo joogno waxa la yiraahdaa boqod madaadooya la yiraahdaa waxay baabi'isay wax yar ma aha waxayna ka baxday agagaarka tuulada Timire goomey iyo Timire inta u dhaxayso boqodaas iyada oo madaadooy leeyahay waxay baabi'isay wax yar ma aha galey baabi'isay boqoray baabi'isay oo wadar nooce suwaxii la yiraahdo siimba la yiraahdo kurtumoole la yiraahdo digiray baabi'isay digeer cagaar digir gaduud ay baabi'isay alxamdulillah basal ay baabi'isay yaanyay baabi'isay galey oo dhul tuurin waa haaqdi waa la tagtay mid hadda oo soo dhalatay waa la tagtay mid waaweynheed waa la tagtay qasaarada ay geysatay qasaare yar yar ma aha alxamdulillah ilaaha soo kabay kale ilaaha soo kabo shalay subaxdii aynugu baxday ilaa shalay xali biri halahaan dabagoonkeedaan ku jirnay alxamdulillah gacanaan helnay maamulkaan ugu gacan siiyay alxamdulillah rabbil caalamiin mahad ka gaarto waxaana loo siiyay qalabkii meesha ay shaqay laheen ama bir aan noqoto ama qori la suuro aan noqoto ama jawaan la geliyo aan noqoto sida ogsoonahay waxaan ku jirnaa waqtigii kala guurka guuga iyo deerta loogu faa'iideysanayo waliba qaar ayaa waxay jirtaa ay jiraan bil camal ay jiraan oo galeedeeda yaanyo iyo bocor iyo sabaaxiil iyo adig qudaarta kalena ay ka badan tahay marka sida daraadeeda waxaan leenahay waa dhibaato dhacday gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan ayaa dhankiisa ka hadlay goobta oo webiga Shabeelle ka fatahay marka waxaan rabnaa dadka deegaanadan degan inay baraarugsanaadaan una soo jeedaan webiga xilligan oo maartay jiilaal ah oo wali uusan roob dhulka ku deyn ayuu saan mara inuu fataho oo maartay biyihii oo banaanka u baxaan mara haddii xilliga roobka dhulka ku dhacana way ka sii daran tahay waxaan rabnaa marka maamulka tuulada iyo dhammaan nabadoonnadaba iyo ciidamada joogo tuulooyinka inay iskaashadaan ay la dagaalamaan biyaha cidda xatee maartay qof waliba beerteeda ku taala webiga xamiirkiisa in digniin la siiyo ayadoo ay warbixinta soo gudbiso ayadoo ay maamulka tuulada ku xiraato maamulka wixii ka awood bashan inuu degmada u soo gudbiyo biyahaas hadii la deeyo maanta tuuladan wax u imaan kara ma jirto dadkeeda bal waxa laga yaabaa inay xatay doon inay ku baxaan maalinta kale u bixi waayaan Ismaaciil Abdulla Sabriye Universal TV tuulada Timire degmada Jawhar gobolka Shabeellaha Dhexe